ماشي أيوب وفدي نكمل ريحان عادي شيء جري نكمل ريحان ودقالها فدي أيوب ماشي وفدي مبارك لي هذا ودتك دقالها وقاعد جرين كحر حري جرين أيام ما أنت لقبتي كولومبيا وكسلان كولومبيا عش نكا كولومبيا شان سنة يكبرون الجوا سلام قاس المدن هاي ومعركة وهذا سلام يا جمهورية بركة سنوي لما يوم مركا ضدكو قولها أي شيكتان ويكون فعنان ضدنكم ما فعنان قولها ما أنت اللي جاري ودولة دان جارتي حمزة يا حسن وحكوا فانا يا ماركن أو برو اليوم وكسرنا بس كم فانا المرك وحقبض اللوب بهني بل دولة دي هوري وحي جوكتي شان سنة حفيزكا ولا جدي الله هيك شباب هالما دقالكم ما قاعدين سجاشن كمان موضة أول ما هذي دولة حسن يا حمزة بصرنا والله قبتي ما أنت نوحلها يا مبارك بعد دقائق وين ومحوسلي أو ضدك إس أبابولين وما عرفتي الشباب كلهم قاعدة عينا وأوجدنا marka ciidama ahaan imaamul goboleed ahaan inuu wada jir loola dagaalo ayadana shir la fadhiyaa oo isniinta dhacaya axmedooba ugu hor yimid waa joogaa waa maqlay danina waa iman doonaa cali guudla waa iman doonaa madaxda maamul goboleed ayagana waxaa laga rabaa in kaalintooda doorka argixisada la dagaalayo ay ka soo qayb qaataan Soomaaliya meelaha baabacsan oo argixisada ay haysato waa koonfurta aad u haysato iyo galmudug waxaa laga rabaa madaxweynaha Jubbaland madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle in ay la dagaalamaan argagixisada dadku abaara jirta diyaarad ma ogi baabuur wax lagu geyn karo maqaasiinada raashina ka buuxa meel la marsiyo mala diyaarad ma ogi diyaarad cargo oo dawladda qabto weyn ma jirto waxa diidan waa niman diin sheeganaya argagixisada diinta soo nasteexa ma ahayn diinta Soomaaliya ta agoonta iyo dadka dhibaataysan in wax la taro sheegayso Soomaaliya baayi bakool oo isku dhow ayaa la kala gudbin laayahay ku darsiya laga walwalaya akooma lacag uga buuxa ninka xukuma farmaajo wili si dhageysanaya wili farmaajo madaxweynaha isku u maleeya ku darsi goorma lagu raaxaysta markii dadkaaga amni ay ku jiraan baydhaba laga tagi laayahay dadku ku xirxiraya baydhabo ayaa laga tagi laayahay siyaasiga ka tagi la fikirkiisana ku dhiibta raba maxalabaan u doonto shabaabna maalin lama dagaalamayo marka asaaba la shaqeeya shabaabka marka Soomaa marka waxaan rabnaa shirkan hadda la fadhiisan doono oo isniinta la fadhiisan doono axmedoobe inaan dhaqaaqa ciidan ka aragno ciyaar waa dhamaatay 12 sano meesha fadhiya haddii farmaajo shalay diidana shabaab in la dagaalo dawladdan in shabaab la dagaalo way ogoshahay أصلا دقائق كربنا عيدا إنه قاضو على جود لا ولا دقائق عيدا كربنا إنه قاضو قرقر دقائق عيدا كربنا إنه قاضا كربنا نكل اللي هلفت قرا دقائق عيدا قاضا كربنا شان سنة دي اللي سيحين هاي بعشة فرماج ذلك سيحين هاي فرماج جوا تجي لكن ما حد كلهم مرسوني سامر وده كان دتك جاجة هيسا أبارته هيسا ودتك كونفورت كنول يدتك بودلان يكونول بودلان دول كده وحد مركب لوجيو ويجيسك كرتا دول كده أفراقه أيضا وحي قندراس كو قادتا بورتا سكتا كو كجيران قندراسي كو قادتا وحوالش كو قرر ماهي يا دبان مركب وحد ما دت كان كسماية دقن إلا يحمر إلا إيدك دقن ألر مركب وإن عرقنا مركب دقاق وين عرقنا متراد وين عرقنا مركب نعوس لي ود دالا يعني وقنا لكن نظامك الدولي عاوي نظامك الدولي oo qorqor dadku xukumaayay cali guud la dadku xukumaayo ninka leeyahay maxamedow dadku xukumaayo lafta garan dadku xukumaayo aawe dad badan daadanayo laakiin ninkan YouTube lacag ka qaatamay ciyaalka YouTube lacag ka qaata way jabeen maxay ku jabeen shala farmaajo laga soo horjeeday waa loo amiray waa loo iimaanay Soomaa maanta farmaajo waa baxay marka fuyugu yaraana marka waa in marka nabad iyo nolol ku waa u raaxayaan marka aniga ma hay kuwaas aniga waa shaqeystaa haddaan kula hadlay shaqo ku jiraa marka inaad dhacdo inaad dhicin adhoongiba daam masajayga wuxuu ku socdaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka ku socdaa abaara dadka dishay hay raashinna waa yaala hay meel la marsiyo male yaa diiday shabaab wala la dagaalaa shabaabka
maanta soo lama qaban xarunta ugu weyn ayuub uu joogay ayuub waa nin mareexaana waa ninka dhaqaalaha kaa qaadaya ayuub mareexaan waay kontin ku amniyaada leeyihiin may ubar ma wada waxaan wada galay galay wada galay fiiri bini aadanka arkaysi dadka mas'uuliyadaada waa inaad ka soo baxdaa shalay haddii diyaaradaha lagu diidayo Jubbaland lagu dhibaateynayo maanta dhibaato kuma haysato maanta waxaa laga rabaa argagixisada la dagaasha laga rabaa maanta mamarsiyaha oo yaraanaya maanta ali guudlaawe waa taqaan sidii Soomaaliya lacag looga qaad laakiin argagixisada loo dagaalamo taqaan Soomaa maanta anna waxaa laga rabaa in argagixisada la dagaasha laga rabaa lafta galaan adigu waa taqaan sida baydhaba siyaasiga ugu diidid ugu xoog badan tahay oo xildhibaan ugu soo diidid laakiin ma taqaan sida loo dagaal argagixisada maanta argagixisada la dagaasha laga rabaa وين بابورك بينما كسب حمري ماذا بابورك حمر كبح الجوهر وتجا كي حمر كبح كسماية وتجا كي كسي تجا حمر قرمود كبحه إنه تجا على الرب قرقورنا لقوا بهين العك فرماجة وكقالتين قولي وادين بسي تركي وادي صوبان فرماجة تك لكن ما أنت قادر ودك على حساب أنا قصار ضدك دبات صار لجارسي مع مرض لجارسي اللو بهين هاب كل جارسي أنا وأرجع حساب أكون صوبان أنا كسرت على جارب قادر لكن مدحونا أنا هاي تركيا أكون يقفرين قرية كجت هاي فرماج إن شاء الله وشقينا هاي ولي فرماج وشقينا رجع سنة وش لا شقينا يا دقال ما قاضي إدم الحنوط هنوش شيء سامركاس وأنا دول كان لحرية ورك نبطة أوي ما أنت هدي لقب تحرمت وجوينت ودقالها هيك قادنا أيوب فديني كمريحان والعجها أرولنا هي مبارك لقى قبتي طبعا كل سوق قبته داو عانا إلا وريسته ضدك العجها أوكينا إلا سوق قبته dadka lacagaha u dhiiba kuwa u ururiya ganacsatada waa ognahay in wax la weydiiyo wax la iska weydiiyo loo baahan ganacsatada badan aan ugu hayso annaga ognahay argagixisada siyaasiyiin badan aan ugu hayo wayna soo baxayaan sida xusul u soo baxo kala soo baxayaan xusul hadda waxaa la is arkaya sawirro oo asagoo al-shabaab ku jira la keenayo I don't know photoshop miya difaac qaran kulli aan ka xiganahay difaac qaran ayaa wuxuu su'aal ku saabsan la weydiinaya ninaan saaxiibnahay asaga qaraabiyiin oo igu xanaaqay ninka haddii argagixisada la dagaalaya ka hor yimaado asaga argagixisa dadkeena waa dhiban yihiin waxay u dhiban yihiin waa argagixisadaas waxa aad ugu dhiban waa annaga hadaan hawiyeen annaga aad ugu dhiban annaga dadkeena dhaqaalaheena gabdhaheena dhulkeena lagu haysta hoteeladana lagu qarxiyaa hoteelooyin kala jira ka agdhow hoteeladaas oo aan la taabanin oo qarxid laga soo abaabulo hotel Afrika annaga la wala qarxiyay yaa ugu dambaysa hay'ad annaga la wala qarxiyay hoteeladana wala qarxiyaa kuwa kala jiro oo annagu aan naqaano oo u dhow agtooda yaala oo laga soo abaabulo qarxiyada ay seexdaan dadka qarxida soo abaabula oo ognahay waa la soconaa dadka marka waxaan ka rabnaa marka in indhahooda ay furaan dhagahooda ay furaan maskaxdooda ay furaan ay kala saaraan diinta iyo qaraxa diinta waa nasteexo diintu baad ma ahan diintu waa nasteexo maanta mubaarak haddii la qabtay waa guul soo hoyato waay guul aad u soo hoyatay oo wanaagsan waay wuxuuna joogaa madaxweynaha hadduu u bato 6 bilood ka yar 5 sano ninkii jooga muxuu qabtay waxba ma qaban asaa iska lahaa baashan soma sida caadiga baashan asaa iska lahaa marka waxaan rabnaa marka ciyaalka yaryarka ah oo YouTube leeyahay oo lacagaha ku qaadanayo oo beenta buufinayo Soomaaliya cadow kala male cadowga Soomaaliya leedahay waa argagixisadana dad baa ku qaraabto iska leh rag bayna u shaqeynayso hal maalin dagaal aan ku qaadan farmaajo iska leh argagixisada ana hadda ku sheegay qabiilkiisa konton ku amniyaadu ku leeyahay إلى 27 إساقة شروط وبدر أديك وحبك ما هي قوانك أيجا قاتل وحلا دباتين هو أديك هذا اللي قرب مركع عقل جاجا إنه شقيه بس كحلاضون أي شقيه سكونا الديلو إنه سود دويس ولا دجال كارجع سدان ما أنت مركع شركة مركع وحكربنا عجنديس إنه نقضه إن أرجع سدان لا دجال وقت تجي فرماجو عضو شل كل شيء كوكاني فرماجو is gone ماشي حسن الشيخ مدحوينه كا حمزه الوزاره كا اجندياش ugu weyn waana lacag qaadataan Soomaa lacag anaga la soo marsiyo lacagta adiga dadka wax ugu ma qabatid lacag dadka lagu soo dhiibay waxay u baahan yihiin raashin u baahan biyo u baahan caladiif u baahan koronto u baahan ma gaarsiisid mana gaarsiin kartid dhulkaagan baabuur wax lagu ma geen karo say wax lagu siiyaa marka hore waxa ka horeyso wax lagu siinayo in horta dhulka xoreysa ka horeyso marka hore dhulka ina xoreyso oo dadka gaajaysan la gaarsiiyay macaawinada ayaa horta ka horeyso wax kasto la keeno waxa dhex ugu jira argagixiso ina la dagaashid lama doonaysid ina argagixiso dagaashid laakiin waxa doonaysaa inaad wixii cusub oo hor yimaado dadka la dagaal argagixisada la dagaalantaan
dad aad soo kicisaan masaakiina maanta ah waxbaan kala ogeyn meeshaan marka waxaa loo baahan yahay yaa wax qabtay less than 6 months basra iyo mubaarak mala joogaa dadka wax qabtay waa dadkaas waa xukuumadda dadka wax qabatay haddii ku dhibayso marka la dagaasho argixisada la dagaal ku dhibayso aday ku taala magacyada u bixiso iyo hadda iska dhaaftaba dhagay jalaq laguma siinayo waa daalaysaa haddaa xil rabtid iyo haddaa xil raadinaysid aday ku taala xilka waxaa lagu raaxaystaa marka argixisada laga saaro dadka oo baabuur intaa qaadato aa ku tagi karta Kismaayo baabuur intaa qaadato aa ku tagi karta Ceeldheer iyo Ceelbuur ku tagi karto markaasuu xilka macaan yahay baabuur intaa qaadato Jowhar ku tagi karto laakiin adoon baabuur qaadan karin oo meel lagu duuwayo kamiinada ku duuwayo ogtaa hayso kuwa nagu dul haayna aan ognahay wahabiyiinta ah oo annaga sida keen dhigay qatarta ganacsatada tuugada ah lacagaha u aruuriyo ayagana in la soo qabtaan rabnaa ka bakaaraha lacagta ugu aruuriyo in la soo qabtaan rabnaa kan rugta ganacsiga jooga lacagaha u geeyo abti ma cararnama imaaraadka jooga in la soo qabtaan u baahnaa wax la weydiiyo haddii basra la qabtay maanta shalay la qabtay maantana mubaarak la qabtay argagixisaduna lagu dhiiraday maxawsle iska celisay waa soo dhaweynaynaa kuwa marka bulaaliya dhaqaalaha ganacsiga u aruuriya ayaan u baahanahay marka in 10kan hadda la soo qabto dhaawaca la baaro la sheego qofka la shaqeeyo lacagaha u soo aruuriyo qof walba sheego kuwa telefoonada u haya ayaan u baahanahay in wax laga qabto kuwa akoonada u furay ayaan u baahanahay in wax laga qabto kuwa garaashada u haya ayaan u baahanahay in wax laga qabto sidii baashan u bilaabatay ayaan ka rajaynaynaa u socoto waxa caalamka maanta waxaan maraynaa Ukraine oo dagaal ka socda inay qamadi ku soo dhigto adigoo 8 milyan hektar beerad leh waxa laga beeran waayay oo dadka barakiciyay xoololey iyo beerleyna waa argagixisada ayagoo qandaraaskaas soo qaatay maanta waxaan maraynaa marka inaan bakaaraheena raashimo ay noogu jiraan oo annagu aan leenahay oo abaartan aan kaga baxnay ahaan jirtay sida ay noogu imaan argagixisada carabtu noo keentay qadar noo keentay annagoo weliba isdilayna oo dagaal sokay dhexdeena ka socdo oo dagaal ka socdaan ayaa weli bakaaraheena shaqeynayay oo dadka cunto ugu jirtay maanteena bakaarta iska daayay wax lama beeran karo yaana gaarsiiyey marka waxaana gaarsiiyey argagixisada in wax la beeran waayo maanta yaana gaarsiiyey annagoo 8 milyan hektar beerad leh argagixisada waayo in maanta Ukraine oo dagaal ka socdo ay qamadi noo soo dhiibtay yaana gaarsiiyey argagixisada gaarsiisay in maanta caalamkan ka harno yaana gaarsiiyey argagixisada gaarsiisay waa soo qabanaya qof walba Colombian ku bilaabaya saaxiibkay fikirkiisa ha dhiibto marka nimay how aqli hajirto intaas aadana naga argagixisada waa jabtay yaa loo adeegin yaa laga baqin hala raaco dadka Colombia سلام قبل ابن عباس long time هلقن كيف يسوي كده بيسي هذه رافو هلقن كده راي شت سنة يقول كذي يسوي كده بيسي إن الله يفعل صوت أبو فرح كل ما هذا هذا يا إنه دولتية إنه محافظة إنه ضمتي أمتك الشقيني هرت وحي فرحة إن يعني عدوي لبع عدوي لهاين شعب كصومالي يقول ها بين هرت عدو أينو درني عدوي لبعض الشباب هرت إنه هذا ولا لبع عدوي نهيستي إن أنا عادو هوريس كدرنا إنه ما أنت أباهنا هاي إنه لا ضيعنا الشباب مش كستيجو تبى هات اللي بعد هذا أقول فرها بدلنا يعني المرة البكاء اللي جتة هات واحد يكون جتة بيروين تشرفت عليه يمجاه يا معموس كله أنا مرودي وقعنا ودو ده أي يعني اللي قلت من يلا دباتين يلا حسوق أقول بدل كل شيء هات الريم قد شيء يعني باش وين هذا المجا أقول هويني ماذا أتكسر شيء ده هيدا إن بدن براه بشدة كلها والهوية والقبيلات دبرت عنهم إن إنه أي إنك تشرع عن الله فتوى الحمد لله هذا بحدث هنتينه شمال الفنتي وباشي قبيل نمدي اللي جوفاني ومقمضي ومعصرية فنتي موفق وسيارة سناء بنقوها بريني يعني مستر شمال ورو هل كان كيسنا يلا ساقلي horta waa muhiim in maanta laga safeeyo argagixisada deegaan kasta oo la joogo maanta waa in u baahannahay sina horeba ugu baaqi jirnay in ummadda la badbaadiyo ama Kismaayo ha joogaan ama Baydhabo ha joogaan ama Garowe ha joogaan ama Galmudug ha joogaan maanta waxa loo baahan yahay midnimo wada tashi iyo gacmaha la isqabsado la iska safeeyo cadowga ma dhama al-shabaab 8 ma dhama wayna ognaa ciidamada federaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay leedahay waynu leenahay awood ay leedahay nin walba inuu qori haysteen maanta ognahay ciidamada joogayna ognahay UN ta ma ahaadana Amazon ta ba ahaadaan maanta waxa loo baahan yahay in la iska dulqaado cadawgaas maanta inoogu haray in gobol walba deegaan kasta
oo shanta maamul goboleedba in laga kaco oo nimankaa la iska dulqaado waa muhiim waxa ay ku jirtaa aayaha haddii nabad la helo unbaa nolol la heli karaaye maanta waxa loo baahan yahay intaynaan iyaynaan hadho iyaynaan aamusino iyaynaan odhan xilkii unbaynu fulnay waan maanta ummadda aynu badbaadino aynu ka sufayno al-shabaab meel kastoo joogto in laga sufeeyo horta waa muhiim waan taageersanay waxaan hambalyaynayaa ciidamada macawisleyda deegaan kasta kasoo jeeda ee maanta u istaagtay inay sharaftooda iyo cisigooda iyo hantidooda iyo maalkooda maalin walba la gubayay la biliqaysanaya cashuurta laga qaadaya cunaqabataynta lagu hayay inay iska badbaadiyaan waan ku garab taagan waan ku hambalyaynaya waxa loo baahan yahay inaynu inagu gubaabino waxaan ugu baaqayaa waxba yaan loo arkin afarta inaga beedhay halganka nagula jiray kalay way jiraan dad beedhaa way jiraan rag waaweyn oo halganka inala soo galay oo magac kule baraha bulshada aynu garanayno ayn maanta ognahay ood mooda yacni in laga hor imanayo yacni cadow loo horseedayo doonayaan in yacni ama la dhex marayo CBB qolooyinkii يعني ولو هايستين ولي دولتي هنا دح مريان waxaan oran lahaa waxba yaan loo arkin aamusnaanta lagu dilaa waxba yaan hasalasiin yaan loo jabaayin waa tan qaldamay weeyaan shalay hadduu halganka inuu jiray maanta inaga yar beeray waxba dhib yaan loo arkin iyaga laftooda yaan la xaxagane ilaahay ha soo hadeeyay ma leenahay inta inaga beeday maanta badbaada loo baahan yahay hal la badbaadiyo deegaan kasta ama dir ah ama daarad ah ama hawiye ah ama raxaweyn ahawo maanta diini walba deegaankaaga isaad u badbaadin lahayd baa lagaga fadhiya ayad dhibta iyo dhibaatada aad ka kicin lahaydeen shacabkiina haysata maanta waxa loo baahan yahay in la isu furo in la qaado wadadii amniga lagu soo celin lahaa ee ummaddu ay nabad ku heli lahayd baa maanta mar walba loo baahan yahay in la qaado u istaaga halgankii weli ma dhammaan waxaa socda halgankii sifaynta al-shabaab baa socda labadii cadow waan iska qaadna cadowgan kalena waan iska qaadi karnaa sin kii kale iskaga hor qaadna quwadda lahaa wax walba ka diidanay 5 sano baynu eriyeenaynay in lamid ah war sanad baynu ku sifayn karnaayo loo istaago gacmaha hala isqabsado intay naga baydhana waxayaan la odhanay ha loogu dulqaato halgankii soo galeen runtii iyaga wadada kusoo dhici doona nin shinin doonaya kaley dad bay dhaqaalo u tahay ama in ummadda la fadeexadeeyo ama la mucaarido kaley dowladda waxba may joogin 4 bilood waxaan ahayn bay joogtaa runaantii anu mar walba waan soo dhaweynayna mana laga yaabo 5 sano inaan mucaarido dowladda maanta taageera dowladda federaalka Soomaaliya inaan mucaarido marnaba ma laga yaabo inaan waana iyo tala siiyo mooyaane dee meelaha munaasabka ku aan ku siiyo mooyaane ma laga yaabo inaan mucaarido marnaba ma laga yaabo marka intay naga baydhana waa walaaladee weeyaan haddii shalay nala halgamayeen qiimo ma leh dad baa shilinkaaga baydhaya lagaa yar iibsanaya dhaqaalo yar yani siisanaya magacooda ama sumcadoodii siisanaya baa laga yaaba marka waxaan oran lahaa dadka laftooda yaan lagu fogaane ha loo arko weligeed batal waa kala beeri jira marka qaarkood waa qaar baa seefta hungurigu kaa qaadi jira oo way jirtaa marka waxaan oran lahaa iyaga laftooda waxba yaan lasii daba socone aynu hawlaheenan kale lanaga jeedinayo ee halganka sifaynta cadaawaha al-shabaab ee ku waajahanay baa la doonaya in ladinka leexiyo qolooyin baa inoo soo dhex maraya hawsheena aan wadano iyagayaan hansan la siin hala ignore gareeyo oo danteena ka muhiimsan maanta hawsha inoo taalo in laga safeeyo cadowga deegaan kastaba horta u taala taasaa muhiima waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay inay dowlad ka dhalatay federaalka Soomaaliya ay hogaaminayaan labadii beelood ee runaantii ugu tunka weynaa oo ogaadeen beesha cagdheer marka la kabtamay aan saaxiibadan hayna ra'iisul wasaare looga dhigay in badan baan ku taameeyay nolosheeda in ilaahay mar uu tusi doono ra'iisul wasaare ka soo jeeda beesha OG ilaahay inuu ugu mahadin ilaahay xasan sheekh uu ka dhigay nin ogaadeen oo ra'iisul wasaare Soomaaliya uga dhigay waa ka daacad halganka dagaalka al-shabaab waa ka daacad labadaba waa ka daacad aynu garab taagnaa baan leeyahay yaa loo arkin dowlad qiimeeyaan loo arkin ha loo arko dowlad ummadda Soomaali maamulada shanta maamul goboleedba dantooda ay ku jirto oo doonaya maanta cadaawa al-shabaab inay ka dulqaadaan loo arkayaan loo arkin qabiiliyaan loo arkin wadad walaaladeena Soomaali meel kasta joogtaba waa isku sijino waa maguuraan beel aynu kala ahaadno waxa qurux badan nin walbaaba beeshiisa sharaftiisa iyo cisigeeda iyo karaamadeeda marka uu ilaaliyo beelaha Soomaaliyeedna runtii uu ilaali karaa marka waxaanu agnahay baraha bulshada waxa ka socda haloo istaago hala garab istaago dowladeena federaalka Soomaaliya hala garab istaago anu ma yihiin halka ku abtirsadaan waa taqaanay Ibrahim reer Soomaaliland ay laakiin jamhuuriyadda barkaysan amniga dhibaatadan gobol walba ka hadli jiro la damqan jiray hooyada baydhabo intaba aanu amni allah idisiya baan leeyahay al-shabaab allah idin qabta baan horumar baan idin siiyay walaaladii baa tihiin
وهذه ولا جعل قبيل عن مثلا لكن قبيل والبدنتي سانو شيغاي marka hawya dulmalaayay dhibaateynay war hawya ka cabaan lahaa marka daaro dhibaato haysto waa doorad ayina ka tashadan lahaa marka raxaweyn dhibaato haysto waar tashada 6 sano la gumaysanay ka cabaan ku lahaayo Soomaalidu wada aad leeyihiin lahaa markaani Soomaali waan wada jecelahay qabiilni ku dhaqmo meeyihii marka aad baan ku salaamaya Ibrahim Abbas adiga saaxiibadeeda dhigeysanaya waan duceynaya walaalahayga Soomaali in Ilaahay amni iyo xasilooni horumar ودمانيسا waxaan wasta dhamaanaysa wax walba xilliga leeyihiin bilaawi dhamaadii leeyihiin faham bay leeyihiin dadku hadda waa fahmeen waana fahamsiinay hadda cadow kale inuu sheegay Soomaaliya cadow argagixisay yahay bay target ku yahay waana ku salaamaya aadan ku salaamaya walaalkay Allah ku shukr karaama shukr ka Ibrahim kaas wuxuu qorshin oo muddo aan wada joognay nin culus ah jamhuuriyadda barakeysan ka soo jeeda dadka marka waa inay fahmaan cudurkaaga wuxuu yahay marka cudurkaaga waxa weeye markii xoolahiina laga dhaqan waayo nimanka argixisada beerihiina laga falan waayo dadku inay hadda lacag ka qaadaan ay bilaabeen biska lacag ka qaadaan bilaabeen waa qamar jinnimo waxaa la rabaa marka markii adiga xasuub laga qaado in wax lagu soo celiyo in jid lagu dhiso isbitaal lagu dhiso maaragtay nabadgelyo ah ku hesho in fikirkaaga aad dhiiban karto in qofku xor uu yahay laakiin aad gumaysi ku jirto marka diinta ma aha qorayso waxay keenaysaa marka nacayb dadku diinta inay nacaan marka qofka maamul bal qarxinayo oo dadka la dilayo la dhibaateynayo wixii qofkii islaam uu kula sheeganayo waxay imaanaysaa marka degjar ah war bahashan waaba la isku dilaaba dadka lagu dilaa dadka lagu qarxiyaa dadka lagu xoogaa waxna looguma qabto hal wada iyo hal buunta December 2 sano joogan nimankan qadar ah buu shaqada gaartay wala soo bilaab wala ku xiyay ciyaalkii hadda fikirkii ay gelisay si kastuu kuula joogo marka alfajri iskuul albatul iskuul marka kastuu laga furo wali fikirka xaq jirka uu kula jooga cunuga asoo kugu qabiilo xaq jirka wali siiya ayagana iska caadi ma leeyahay wixii markii in laga dhaqo way ficnaaleen aad ficnaaleen ilmaha yarka u baxwa annaga waxaan ku soo abaabiyay Soomaaliya inay hal cadowleeda Ethiopian u yahay ayaga waxa lagu tarbiyoonayaa cadow inay leeyihiin cadowga qofka uu murtug yahay ayaga aan ahayn ma bajiro marka possibility ah in qofkan uu ka fikir duwanaa karo adigoo wahaabiga ahaw laakiin ha aamin anina murtug hadii xolay ku banaayeen wahaabiga iska ahaw sida ka wahaabiga uu joogo meel walba joogo wax ugu qabto wahaabiga Hargeysa waa jooga wax u dhisaa wahaabiga Hargeysa waa jooga garow wax u dhisaa wax ma qarxiyo wax ma dilo maxaa adiga wahaabiga anay igu dilaysaa marka adiga maxaa anay igu qorxinaysaa aha wahaabiga lacagaha ku soo qaato ku ogaay laakiin hay qasbin maanta markii loo adkeysan waaye macawisla yaatimi wala iska xoreynaya ciidamada dawladuna waa shaqeynaya meelihii ugu darnaa hadda saldhig ugu weyn xarunta ugu weyn yahay oo ku taala shabeellada hoose mubaarak waa meesha uu joogay nin kale leeyahay Yacquub oo Marixaanka Yacquub deegaankaas uma dharan shabeellada hoose ma dharan laakiin muxuu ku yimid xoog diin been ku yimid maxkamadaha ayaga jooga Marixaanka jooga dhaqaalahana ayaga jooga kursigiina ayaga hayay هذا الاشتيد المليون سنة كي يسمينه يعني سنة مركو كاجع عليها مركو اسكم القضان شنطة سنة ولا اسكم القضان هذا نيكي يمد لح بلاد متجوج أفضل بالشمال وجوجان جولاي ماي جون جولاي أغسطس سبتمبر على مرة يعني و 3 months 3 months وحلو قبت بصر 3 months وحلو قبت ماشي اللي هبدر تنقل الله مبارك محاكا فيها دي أكبر سنة وسيجو أما سنة وسيجو waxaa ka filaya baashan ay dhamaanayso okay baynawa ma tii karaan oo koonfurka ka soo jeedo ma macaan siyaasiga fikir duwanaan ay maartay lafti garaan oo shirsakiin ay gurigayga la bilqaysana waa la xira jawaari aan ay waa la xira waa la diida laakiin lafti garaan shaw lama dagaalayo ay qorqor galmudug aan ay xildhibaan kama doono karo taa ka la dhigaa sida in dhaqasho kaleeto waa loo diidaa wax kasta ay laakiin argagixisada kama saaraya dhulkayga ma fahmin taas ilaa hadda ma fahmin ilaa hadda ma fahmin kacana dalina farmaajo la jooga argagixisada lama dagaalayo ma fahmin ilaa hadda ma fahmin lacagaa la siiyey guryaha laga gaday meesha la maartay Turkiga ma fahmin ilaa hadda maamul goboleeda tahay dad mas'uul ka tahay madaxweynaha u tahay waxa laga rabaa dawladda abatuurka fasuulisa basri ma taagan tahay argagixisada la iska qaadaa la rabaa waa inay ka qayb qaadato laakiin ma hayna hun guri kaliya u dagaalanto ma aniga dhaqaalaha waa wasiirkayga maaliyadda gobolka waa diiday maxaa dhacay dhaqaalaha aniga la igu soo dhiibo mar raba dawladda hay dhaqaalaha xaqiiqeena guriga ku gadanayso ma adaa guri ku dhisnayso
dhaqaalaha xagee keenaysaa adiga adaa guriga ku gadanaya soo maha dhaqaalaha magaca soomaaliya lagu soo qaado adaa cunaya soo maha embarrassmentiga maanta aan marayno inay Ukraine noo soo dhiibtay qamadii aan maraynaa 800 milyan hektaar annagoo la dhulbeerad leh waxa ka bari weyn waa argagixiso xagee wadaa markaani shirka marka waxaan ka rabaa oo baaqan ku jeedinaya walaalahay madaxweynayaasha isku imaanaya isniinta argagixisada in lala dagaalo in la gaarsiin karo hooyada masaakiinta ah oo geeska ugu dambeeya joogta raasayra ka bar macaamilada gaarsiin karo lagu gaarsiin karo gaadiid ilaan dawladdu diyaarada ma qabtay dawladdu diyaarada ma qabtay ku qaado wax waan dhulku isku furan yahay dhulku waa in la isku furaa waa in dagaal guluf colaad argagixisada la qaado kudarsigaaga macnaa ma samaynayo kursigaaga ma ku raaxaysanaysa shacabkaaga oo dhibaataysan shalay diyaaradaha lagaa xiray farmaajo ku cunaqabateynayay dhaqaalaha lagu diiday maanta wax walba lagu ogol yahay laakiin waxaa laga rabaa la dagaalanka argagixisada argagixisada ma la dagaalamaya ii joogto qandaraas ii tahay cid laga yeelaya ma waa inaan isku argagixisada la dagaalamo argagixisada waa in la saaraa shirkaa marka waa inuu warmurtiyadu wada jira argagixisada looga dagaalaya inay ka soo baxdo laakiin ma ahan tayada kaliya aan fiirsanaya aniga uma soo argagixis maaha nin walba mas-uuliyaddiisa waa inuu ka soo baxo annagu markay view ma raadino shalayna waa dareemi karnaa dadka viewga raadiyo xumaanka ma ahan waa idiin sheegay akoon ha loo furan furi haddaan akoon u furi karno waa soo dhaweynaa akoon haddii loo furi karo oo lacaga lagu siin karo waa soo dhaweynaynaa weliba 500 ugu horeysa bil walba anaa dhiibaya ilaa waana baadaya naga rabaa wuxuuda qadiyad maahayn qofka markuu view raadinayo weliba kuwa Afrika jooga haa waa gaajisiin laakiin nin Yurub jooga anama garan karo lacagta oo shaqaysan karaa soo nin Yurub jooga lacagta oo shaqaysan karaa laakiin ninka Afrika jooga waa dareemi karaa waa shit lacag u baahan yahay adigoo Yurub jooga marka inaa abo lacagta raadinaysa maxay tahay ma shaqaysan kan Afrika jooga walaa waa garaba waa shit waaye waa lagu dili karaa meesha amnigiisa ma sugna laakiin nin man amniga joogo Yurub joogo shaqaysan kara inuu dad maartay video ku raadiyo inuu qashaad bilaabo anigu taas ma garan kan Afrika joogo xaq u leeyahay in xoogaa wax loo diro leeyahay raay ballo intaan iska qaado waa macquul هذا معقول لكن من يوروب جوجو بحارته هذه وين يوروب جوجو بحارته وين يوروب جوجو ما شقيتها مع عرق هذا وين يوروب جوجو عليكم السلام وين يوروب جوجو بحارته هذه بيجي أفريقيا جوجو قراوينا هو سوى هذا ذكرنا لكن هذا يوروب جوجتها سوى على وصولها بابا أنت هذا سكبر كيسا بالشغال وأكيد عيا بالجيران dadku marka saas u kala baxaan marka anagu marka biyo ma raadino waligeena ma raadino anaga waqti gelina anaga dhibaatooyin ku qabna waa u sharaxay dib weyn waa naga soo gaaray marka hubka hala dhigo dadku waa dadkii Soomaaliya cadow kala male galmax shabaab ku duulay aniga ma arkin shabaab la dagaalaya ma arkin galmax sharaf ma ku bajo qeylnaya ma arkin dawladdu waa far badan tahay oo la badanaa soo socda waxa soo socota Banaadir State waxaana soo socda wixii way far badan yihiin marka cadow waxaan rabnaa u baahan naga caawiyo shabaab cadow kale u baahan qulub oo baahnaa kama haduu ciidan loo keenay aduu loo xireenaa waa soo dhaweynaa haddaan taageeraanay Soomaaliya cadow kale ma leh laakiin daawada cadow ku noqona shabaabna waa ka baqa aniga ma garan karo walaalana waan aniga ma garan karo absolutely ma garan karo waxa buufinayana waa niman qurba jooga baashan dawladdu way balaarin tahay in walba cadow ku leeyahay cadkaaga waa helaysaa laakiin adiga dhan galmaax oo dhan wax lama wada siin karo galmaax oo dhan kursi lama wada siin karo lama wada qancin karo marka walaalay waxaan leeyahay haddaaba xoog leedihiin macuusley abuura shabaabka naga xoreeya shabaabka dagaal u baahan markaas waxaa waaye waa qancayna caadaan kaga qancayna لكن دقاق كان كانوا هذا داوود أكو قاضيسان أو داوود وحميلي كان أكو قاضيسان أنا وهم مقرن أنا وقر الله يعني جوهرنا أفردسان مكان عليه وجوهر حليد هو هاي تذكر سعدوا له وهم يستهدفوا ذا قريب موجود ويعيشونه يعني مركا عدي خيله وحلقوه ذا والله وافعنا له والله هذا وافعنا له
laakiin walaalkeen wax u diida wax laguma noqdo walaalkaa waa walaalkaa shalay waa aamusnayd markaad midka caanka joogeen afkaaga laba leer u saarnaa maanta inaa hadasho xoogaa ceeda kugu noqonee inaa gogol dhigtay ahayd gogoshaas markaa dhigtay kadib laga wada shiro wax laga wada sameeyo hadda marka gogol dhiga gogoshaa dhigaysin waxay tahay haddii la sameeyo banaadir state la wado waa in qofka ilmaha la keenaa waa kaa yeelaynaa taas hadda gogol sii dhig barbagaaray dadka isugu yeer waxaa tiraa nimo yahow annagu shalay